gal ay si wada jir ah ay u fuliyeen ciidamada booliska iyo waliba kuwa daraawiishta ee Puntland deegaanka macagta ee agagaarka Sugure iyo Galgala ee gobolka Bari ayaa waxay ku soo qabteen gaari saad iyo waliba walxaha qarxa laga sameeyo awna siday kooxda al-shabaab ee buuraha Galgala gaarigan oo ah nooca iskarogada ayaa markay ciidamada ay qabanayeen waxa uu siday qalab koronto raashin baytari qalabkaasi oo laga sameeyo walxaha qarxa taliyaha ciidanka daraawiishta ee aaga Galgala jaamaca Saciida Warsame Afgaduuda oo tafaasiil ka bixiyay howlgalka ay ku soo qabteen gaariga ayaa sheegay inay heleen warbixin ku salaysan in gaarigani uu saad u siday kooxda al-shabaab ee ku sugan buuraha Galgala ciidanka daraawiishta military oo banaanka u soo shaqeeyay iyo waxa tacaawinaya ayaa waxaan helay qabta kan ku arkay halkan yaal gaadiid ku raba أنا أول شيء كان واحد بياسن نقدر يقول الشيء الحمد لله وحكم السنة كان عندك شغل أنا بس وأنا لو هسه رسمية وأسير فرق ذيك العاديين شباب مع القاعدة وشغل وراء علم ذم السكرة أو كبري السنة أنا فكر فرق سنة وحاول يارته مشروع الوديرو مشروع الدين تأيي ذلك أي عالمك واحد كشف عقله صاحب أما مركز مشروع الوديرو هذا واحد بارك وهذا كل بهذا كل واحد هو استعمارات مين هذا حاجة رموز له هذا رموز كله استعمار كل ده كنت أقام هذا هو عبدي محمد قرحن waxa uu sheegay inuu ka mid yahay nabadoonada ka shaqeeya maslaxada Puntland waxa kale uu sheegay in isaga uu mas'uul ka ahaa in raashinkan loo geeyo kooxda al-shabaab ee buuraha Galgala ku sugan gaarigan uu asaga uu urarnaa uu sheegay ma sameeyay lahayd xaruf raashinkaasna aniga ayaa waday hadii ilaahay idmo hadda wala soo xiray oo maxbuus faanahay hadii la isii daayo raashinka waa u qaadaya waa u geeyaya dadka dhalinyarada iyo deegaanka xiliman intaba waa u shaqeynaya waxa weeye raashinkaas dareewalka iyo ninka krishka wax dambiyo ay leeyihiin sabanaad inuu sheegayo anigu ana askari la hadlay oo wax leeyahay waxa ku socda laamiga dheer waxa weeye sidaas baa soo gudbay qabadna aniga ayaa macagu leexiyay marka iyagu wax dambiyo ay leeyihiin ma jiro raashinkaas aniga ayaa qaaday ana leeb qaaday oo geeyay waxaan ku diinaa dadka qaaliya halkaas ku diin dhalinyaro ahaan si fiican xogta ma buqay adigu muhiim waxa waa nimanka dhalinyarada ay buurta saaran ونبغى نسمع نوكي. هم كفوف تبي تجمد وما في لا تجلى لا تجلى ما ينو هذا اللي يرى ولا تري بورصة. مركور رئيس أو رئيس مسا مربنا نقول سوسة. أرجو على كل حال كان نودي هذا نحكي هو رئيس في الشباب مال لكن هذا كان بنودي حتى له هاي مولي شيء دايرة بدم ووجينا والله الله يا واقيا ووجيا وككينا ونبدأ عينه في الدار. جدي وزير كحجانك وزارة أمنية بنتلان عبد الجمال عثمان محمد وحنا أمان بلارن أسو جدي عيدا كدراويشتا يولبا عيدا كبوليس بنتلان أو سكا شذي هالقلكان lagu soo qabtay gaariga iyo waliba qalabkii uu siday waxaan marka hore u hambalyeeyaa ciidamadii hawlka sameeyay oo ku soo guuleystay inay soo qabtaan operation hadda jira oo taagan oo xariiqada ah oo halka arkaan hadda gaariga xaran oo sida aabta raashinka oo isku jira oo noocyada isku jira oo la isticmaalo dadka qudro u isticmaalaan waxyaabihii lagu dagaalamay umada lagu xiltay oo amniga halka lagu geliyay runtii taasi waxay tusaysaa ciidamada amniga هذه جنابك كان هونيه لو وصل كاري سواجات لو بتاعنا تفعوني يدير جانب بينه وبين السامر هذه درجة ليستا منع عملت له في سوق لو معها أو صدق ما عملته وحيوانات قبل النوع وخلع كمان كعشاق توقف عمله كذا حتى أنا أدري سنة سنة شركة سنة على مثلا وبدأ يرسم الصومالي عالم قدمها بعرض واحد arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli ciidamada ammaanka iyo waliba kuwa daraawiishta ee Puntland ay barihii ugu dambeeyay howlgalo xoog badan ay ka wadeen deegaano kamid ah gobolka Bari iyo guud ahaan Puntland Salman Jamal Saciid TV-ga caalamiga Universal Boosaaso